musharax maxamed cabdirasaaq oo u taagan hoggaanka dalka Soomaaliya ee dabayaaqada sanada kan la filayo inay ka qabsoonto dalka Soomaaliya ayaa si mug iyo miisaan loogu soo dhaweeyay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdullaahi Maxamuud Aadan oo SBC uga soo warrama magaalada Galkacyo. maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar waxa uu taagan yahay xilka musharaxnimo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya marka la gaaro sanada 2016 soo dhaweyn ballaaran ayaa lagu sameeyay duleedka magaalada Galkacyo waxaan halkaas ugu hortagay dadweyne aad u fara badan intaasi kadib munaasabadu ku qabtay gudaha magaalada Galkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee magaalada Galkacyo. maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar musharaxa xilka madaxweyne sanada 2016 dowladda Soomaaliya ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay. waxaan la yaabana heerka burburkeena uu gaaray kalsooni darradeena ay gaartay jabka nagu dhacay inaan maanta isweydiino war annaga ciddii noo adeegi lahayd oo madaxweyne noo noqon lahayd waddankee qatar miyaa sacuudiga miyaa maraykan miyaa ciddee noo keenaysa inaan isweydiino aniga runtii wax weyn oo aan la yaabo ee la noqoto laakiin Soomaaliya gudaheeda waxay ka noqotay wax caadi ah in la isweydiiyo idinka marka haddaan idin weydiiyo yaa is leedihiin wax ka dambeeya ninkan madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya yaa inoo keenay yaa inoo xulay waa inay Soomaali ka dambaysaa waa inaa xulin sababtuna maxay tahay waxaan rabnaa madaxweyne ka shaqeeya danta dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa madaxweyne ka shaqeeya oo hormariya danta dadweynaha ka hormariya tiisa oo aan u shaqeynin dana dad kale see ku gaari karnaa waa in shacbiga ay ka qayb qaataan siyaasadda. qaar ka mid ah waxgaradkii ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. mudane musharax adiga wax badan baan ku sugaynay waayo waxuu dalku u baahan yahay cid aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda leh siifi ahaana in badan soo shaqeeyay xog badanna ka haya dalka dibaddiisa iyo gudaha annagoo halkaan joogana waxaanu dareemaynay sifahaas ninku sifoobay inaad tahay maadaamaanan is arag haddana waa ku farxaynaa waana kugu soo dhawaynaynaa gobol ahaan iyo dad ahaan meel kasta codteey u gaarana waxaan leenahay war wax badan baa Soomaali kala lunsanayd wax badan baa dhibaato badan iyo lugooyo badan soo kala gaartay waxaan leenahay war waa haynaa wadadeedii maanta inagoo aan kala leexan waa inaanu saan u gaarno miraha Soomaalnimo si la isugu keeni lahaa ee ah siyaasi dalka iyo dadkana yaqaan wadadana soo maray wadan badan xog badanna haya inaanu helno Soomaaliya meel u jeedo waanu u baahannahay. salaanka bacdi aad iyo aad baa musharaxa u soo dhaweynaa musharax waa ku soo dhaweynaynaa waa ku kalsoonahay waa ku hambalyeynaa boqolkiiba boqol baanu ku soo dhaweynaynaa maadaama hanka inta la eg oo madaxweyne Soomaaliyeed aad doonaysid annagu ninkii doonaya oo u qalma madaxweynaha hankiisuna yahay waa soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawaad baan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow qalbi wanaagsan ku soo dhawow taageeradaada iyo waxqabadkaaga diyaar baanu u nahay waana ku soo dhaweynaynaa boqolkiina boqol baanu ku kalsoonahay. maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda cusub ee imaan doonta sanada 2016. Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo.